soo dhawaada. عليكم السلام مبارك الكعسات بكو سلام يا مبارك بلا إن شاء الله برنامج شو بلابي دونا لكن دكتور صوت قلان يسولي إن شاء الله عاوة وحاتهين على مدى مدني مدى عدايسي عدوين عجبيسي نوشر جريد روشة waxaan iga codsanayaa inaad noo share gareysaan insha Allah barnaamijku waan noo bilaabi doonaa maanta waxa weeyaan waxaan ku bilaabi doonaa horta sidii caadada ahayd inaan ku bilowno maarta ayada quraanka insha Allah ayaan ku bilaabi doonaa iyo maarta alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala arshafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وجاء حق وسحق بادلا إن كان بادلا سولا أما بعد إلهي سبحانه وتعالى مخضله ومارت قدرديسي كرمكيسي أوديسي أنكو صوغلي قودهان با إيقادينا إسلام إيقادينا إلهي مخضله مركا هوري مركا لبادنا وحن قودهان كو سلام يا أمد الصوماليات ميلكستو أيادونك دافيقا كتشوكتو وحنا كو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي عاوة وحو دارين يا الشير جرايد شركة جرايد وحو دارين هاي وحن كهالي دونا أو وقتك بدن بانكو قادن دونا وقتك يجين تبدن جبهة دول مديد أما جبهة عارة iyo maartay waxyaabihii iyo mabaadiidii ay ku baxday iyo sida ay guud ahaan jabhadaas ayaan ka hadli doonaa iyo sida ay ku dambeysay anigoo markaa ka tirsan ahna xogayaha arrimaha difaaca ee jabhadaha gobolada waqooyi ee dalada ku midowday Somali State of Somalia Northern State of Somalia runaantii markaa waxaan guud ahaanba soo qaadan doonaa waxaan halkan ka beenaynaynaa shirkayga jaraa'id uu daaran yahay beenayntaan beenaynayno in guud ahaanba ay jabhaddii dulmidiid ay soo gashay
oo ay soo dhiibtay laakiin caare oo kaliya uu soo dhiibay caarana waxa weeyaan waxyaalaha uu ka baxay baan ka hadli doonaa insha Allah haduu leeyahay marka insha Allah waxa weeyaan barnaamijka inoo share gareeya laagta iyo waxa dhan xaqiina weeyaan insha Allah barnaamijka dadku u maqlaan oo dadka kalena ay u gaadho meelo fogfogna u gaadho ayaan rabaa inaan arintan inaan hilaaciyo maadaama aan anigu ahay sargaalka u sareeya ee arimaha maartay isoo sheeg difaaca xaaladan ka warqabay ilaa waqtigii uu baxay ilaa imika الحمد لله إلهي بابا هذله قدهان بوحة ويا مر لبعض بان إذا لا يهي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا مركينا قد قلو حالة دو سيدة يهيد يا سيدة وقوب حي قدهان با عره xilliyadii maartay labadii kun iyo maartay soo sheega 17 doorashooyinkii dhacay wixii ka dambeeyay waxa jiray in la sameeyay oo aanu sameynay siyaasiyiinta dibadda ee ku nool ama dadka maartay soo sheeg qurba joogta aqoon-yahaniinta oo aan markaa sameynay waxa la yiraahdo United States of Somaliland taariikhda halkaas aan ka soo bilaabaya insha Allah kadibna taasi loo sameeyay ahayd in dhibaatooyinka ka jira wadanka ee cadaalad darrada sinaan la'aanta wuxuu dhanba sidii looga bixi lahaa taasoo markaas daladaas ay lagu midoobay Awdal State maartay soo sheeg Khaatume State iyo guud ahaanba maartay soo sheegana bariga oo iyaguna jabhadan markaa intayna soo bixin aanu midow aan sameynay xafladeedina lagu qabtay London oo halka lagu doortay Martin waxa la sameeyay marka arfaysaro iyo guud ahaanba maartay soo sheegana waxa la sameeyay golihii dhexe oo aanu sameynay iyo arfaysaradii dawladdaas oo markaa ahayd dawladda dibad jooga oo markaa Martin ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Cabdiqaadir Farxaan Cabdiqaadir Xashariye oo deegaan ahaan ka soo jeeda maartay hadaftinimo ama baran deegaankaasi Sanaag ka soo jeeda waxa kale oo markaa la sameeyay soo sheegana golo wasiiray lahayd anigu markaas waxaan ahaa maartay xogayaha ama la taliyaha arimaha xiriirka caalamiga relationshipka iyo difaaca ayaan ahaa ee ra'iisul wasaaraha markaas dawladdaasi oo markaa aanu sameynay ama maamulkaasi wuxuu ahaa maamul ku kooban guud ahaanba oo sharciye ahaan marka la eego legislationka ama United Nationska wadano badan oo ku dhaqma jira Faransiiska ku soo dhaqmay oo jiray oo maartay ku dhawaaqay mar dawladda dibad jooga la yiraahdo way jirtay marka systemkaas aanu sameynay markaanu systemkaas sameynay muddo dheer baanu anagu ku jirnay waxa markaa soo baxay 2018 bilowgiisii meelahaas ayaa waxa soo bilaabmay caare Cornel Caare ayaa wuxuu ka cadhooday kacdoon jiray iyo dagaalo ka dhacay deegaankaasi oo labada deegaanka maartay soo sheeg Ceelaf Weyn oo markaa u dhaxeeyay labada beelood ee maartay kala deegaankaasi Biciidi iyo maartay
dhinaca Sacad Yunis isaguna markaa ahaa sargaalka ciidamada haysta ee deegaankaasi Sanaag haysta uu ahaa waxa markaa isku dhacay iyagii ciidankii kale ee taliyayaashii kale ciidanka oo markaa ay isku dhaceen oo baaskoolada la soo baxay annaguna markaasi waxaanu lahayn istiraatiijiyad aanu lahayn in guud ahaanba maadaama aynan jabhadi ka jirin laakiin aan dowlad dibad joog nahay sidii arintaas waxaanu aad markaa aragnay isagoo social media markaa la soo galiyay oo kii ugu horeeyay la soo qaaday markii dambena warbaahintu ay soo sii daayeen waxaanu markaaba xiriir la sameeyay wuxuu markaa ahaa sargaal ka tirsan isagoo ka xanaaqay 3 nin oo lagu dilay oo markaa ay dileen ciidamada Somaliland ay dileen oo uu yiri war haddaad idinku u eexanaysaan oo ay 3dan idinku aad disheen oo u eexateen loo kala eexday aniguna dadkaygii baan raacaya oo aan sidaa ku baxay kadibna wuxuu tagay magaalada Garowe hadaftan muu tagay uu ka sii baxay Garowe tagay Garowe markuu tagay gaarigii ugu horeeyay waxa uu iibiyay maartay dad kamida oo beesha isaguna uu ka soo jeeday kamida oo markaa ku taageeray oo maartay soo sheeg dhibaatooyinka dhacaya ee maamulka Somaliland oo xagaldaaca ah ee siyaasadaysan ee dhinaca kale maartay soo sheeg hubka la siinayo askartiina ay u dagaalamayaan oo hubba ay haystaan arintan markaasi wuxuu ahaa caare markaa waxaan aaminsanahay wuxuu ahaa nin ka kacay oo maartay ka diiday qadiyad umu bixin wuxuu ka xanaaqay 3 nin oo lagu dilay meeshaasi waliba ninka ugu cajiibsan uu ahaa maartay gaalife maartay nin la oran jiray oo maartay kamid ahaa 3 nin la dilay buu aad uga sii xanaaqay kadibna waxa weey dilka loo geysanayay dhibaatooyinka Sacad Yunis loo geeyay iyo beeshu ka soo jeeday buu ka xanaaqay anagu markaasi xiriir baanu la sameynay waanu la hadalnay waxa la hadlay markaa gudida dad kamida oo garxajisa ayaa xiriir la sameeyay waxa kamid ahaa Martin xiriir toos uu la sameeyay wala la hadlay wuxuu tagay dhinaca Puntland waxaanu sameynay markaa garabka siyaasadeedku waxaanu ciyaarnay qorshihii ugu horeeyay inaanu balankii diyaarino kadibna la tagaalkaasi waxa la qarinaya maaha caawa waxa weyn halkan baan ka sheegayaa waxa weyn arinta jirta ee uu Caare ku baxay ma ahayn qadiyad umu bixin ee wuxuu u baxay oo kaliya caro uu ka cadhooday dagaalka iyo dilka lagu hayo jufadiisa markuu halkaa tagay annaguna waxaanu markaa xiriir la sameynay joogtaa waxaanu u soo dirnay gudidii fulinta yimid ra'iisul wasaarihii iyo maartay madaxweynaha iyo waxa soo diray wasiirka arrimaha dibadda 3daas soo baxay waxa kaloo markaa goob joog ahaa oo gobol xaal u sii sameeyay Suldaan Cabdi Gahir oo isaguna ah suldaanka nabadda oo meesha joogay oo xilliga iyaduna ay jirtay xilliga dagaalka Somaliland iyo Puntland ay tahay xaalad adagna lagu jiray markaanu meesha nimid waxaanu ka wada hadalnay oo la istusiyay oo ay go'aan la qaatay oo lala qaatay maartay soo sheeg in ninkan la taageero hubna la siiyo hubka uu maanta haysto ee uu halka joogay ma qaadan hubkeena halkan ka cadeyn doona laakiin waxaan rabaa inaan soo wado oo aan idin cadeeyo sida ay wax ahaayeen iyo wuxuu jiray kadib waxa weeyaan ciidamadii ugu horeeyay ayaa soo goostay oo dabadna ka soo goostay Somaliland xaqiisa si tagan tababar la siiyay saldhig military in la siiyo kadibna maartay tababar lagu siiyo ayaanu halka ku qorsheynay meel qardha u dhow ba tababar uu ku sameeyay ciidankiiba halkaas ku keenay kadibna waxa weeyaan soo sheegana tababarka la siiyay diboogi ugu horeeyay ciidanku markay ka baxeen baan waxaan u soo la soo siiyay technicada wuu soo baxay wuxuu yimid marka hadaftinimo agteeda meel uu markii damar Karim buu soo dul istaagay waxaan ognahay guud ahaan soo socdayna buurtaas uu garay wada hadalla inta noo socday anaga waxaanu kala hadalnay markaasi qaabka qorshihiisa ah iyo operationadu sameeyo iyo muxuu u qorsheysan guud ahaan ma aaminsanayn waxa la yiraahdo waana la isku wada diiday runaantii cidii taageereysay taageero buuxda ayay maartay u sameeyeen beesha uu ka soo jeeda guud ahaan garxajis meel kasta ay joogaan dibad qurba joogta garxajis waxay u sameeyeen waxa la yiraahdo maartay taageero waxa marka taageero hub ana
iyo laba wala iskugu daray taageerada maartay la siiyey oo ay say United States of Somaliland ay siiyeen iyo taageerada maartay soo sheeg garxajisiiyeen labadaba wala iskugu daray runtii waxa weeyaan garxajis hub ma bixin karaan oo hub ma keeni karaan oo ma siin karaan laakiin waxa la sameeyay in meesha markuu dul degay ee uu galay iyo soo sheegay ceergaabo uu galay buurta uu galay waxa dhacday in markaaba la iskugu imaado in markaa maartay soo sheeg dadkii deegaanka deganaa oo run ahaantii aad uga cadaysnaa in maartay soo sheegana dhibaatooyinka ka jirana ay tahay oo siiyay waa la kala saaraya markaas beesha la yiraahdo laba beelood ba markaa Saad Yunis run ahaantii waxay ahayn dadka celafweyn degan ay dagaalamaan biciido laakiin kuwa siiyay garabka guud ahaanba siiyay waxay ahaayeen Muuse Ismaaciil ciidamada cidda gashay ee maantana ku jirta iyaga u badnaay حتى سراكيل وحا مركا aan halkan ogaanay saraakiil fara badan baa iskugu yimid waxbaan isku weydiinay waxa kamida saraakiisha kamid aha ee galay arintaas marka hore waxaan eegaya nimanka siyaasiyiinta waxa uu horeeyay maartay dawliye sare maartay soo sheega oo maartay ayaa maartay isaguna kamid aha Martin baa kamid aha Asayr dawliye sare Asayr iyo Martin ayaa labadaas ugu muhiimsan oo ah nimanka siyaasiyiinta ay dibadda ku nool markaas arintana maartay la galay waxa kale oo ku xiga nimanka iyaguna markaas garabka siiyay saraakiisha aha oo ina Ramba kamida Gamal Baaxad baa kamid aha Cornel Faysal oo ciida gala ayaa kamid aha waxa markaa la iskugu geeyay awoodii oo dhan ba halka la iskugu geeyay wala la shiray shir baa la yeeshay wala la kulmay telephone conference baan la sameeyay wuxuu soo diiday wax la yiraahdo Somalilandnimada ayuu ku dhagay waxa la yiraahdaa xaaladda maanta jirta xaalad Somaliland maaha adiga laba mid soo gal jabhadi ma biilin karto beeli jabhad ma biilin kartee garab baad u baahan tahay SNM markaynu hayno baxnay Ethiopia garab ku siiyay waa loo aqli celiyay wuxuu haanin ka dhigay guud ahaanba jabhadaba ka dhigay siday u dhantayba aniga noqonay jananka ciidanka balaak jabhadu meesha qaladaadka dhacay iyo arinta dhacday ee uu maartay soo sheegay carra sameeyay kamid ah wuxuu sameeyay anagu waxaan u soo bandhignay hadaa doonto waxaad qaadataa jabhada United States of Somaliland qaadaan ku niri hadii aad Soomaalinimada diiday taana uu diiday wuxuu diiday waayahay jananka ciidanka ugu sareeya noqon doontaa meeshan sharafna uu ku yeelan lahaa runta marka laga hadlo jananka ciidanka u sareeyo noqon lahaa istiraatiijiyadna waayay dawladda Soomaaliya qadiyada maamul goboleed saad u noqoto adigu wax la imo baan ku niri waxay noqotay inuu jabhadii ka dhigo jabhada caare taliya caare jananka ciidanka haysta caare wada caare gabiba maaha system marka waxa weey wax la yiraahdo laab la kac weeyaan muddo dheer baa markaasi arinta la soo waday oo loo kala dambeeyay Martin baa ugu horeeyay waxa ku xigay soo sheeg guud ahaanba siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo maartay intaba waa laga hadlay arinkaasi xitaa marka xitaa garxajis guud ahaan salaadiintooduna ay raacsanaayeen in jabadan xitaa marka wax meesha yaalo oo qaatay oo go'aan uu qaatay beeraatay ma jirin arintiisu waxay aniga arinkayga la igu daayay af moraarti gaandariga ana maamulaya maartay technical ana maamulaya artillery ana maartay waa taliya artillery anu noqonaya taliya infantry anu noqonaya aniga isaga waan wada hadalna xitaa anagu waxaan dhis nidaamkan aad weyso nidaam military-na maaha strategy military-na lagu wado waxa weey nidaam jabhadeedna maaha jabhadu hubka markii lagu siiyo waxa la doonayay inaad operation samayso operationka ugu horeeya jabhad waxaynu ku naqaanaa jabhadayn inay operationna samayso dagaal googos ay gasho sidoo soo socday buu buurta dul fadhiistay reerka buu dul fadhiistay reerkiina awood bay saareen waxay dhahan maadaama aad anagana dul fadhido loo dhawaan maayo waynu ogeyn mudaharaadkii weynaa ee ka dhacay magaalada ceergaabo ka dhacay markii ay ciidamadu yimaadeen uu soo diray jeegaantu ciidamada ay soo direen mudaharaadkii ka dhacay waynu ogeyn waa la wada ogaa wax qarsoon maaha arinta qadiyad ma ahayn uu qaatay isagu waxaan marka qadiyad maadaama uu qaadan waqti dheerna ay qaadatay isagiina wuxuu ku waayay maantana sharaf buu yeelan lahaa laakiin waxay noqotay intuu meesha u fadhiyo inuu wax oo dhanba isagu xuurta ku haysto arinta ay tahay anigu markaasi go'aan baan maalmahaasi soo jeediyay kana qaatay oo nidhi arintiisu maaha arin dagaal inuu galan uu mar raba wuxuu doonayaa in uu la gorgortamo
maamulka jeegaanta waynu arki doontaan systemkana waa systemkii dhacay laba ninba waxa weeye waa labada nin ee jabhadda dhabar jabka ku ahaa midna garabkii siyaasaddu sii kala daayay oo ah martina runtan caawa sheegaya wax qarinaya ma jirto martin wuxuu sameeyey shirar joogto aan samayn jirnay buu qariyay ayuu soo ka soo qayb gali waayay 4 bilood waanu weydiinay waxaan ku nidhi martinow madaragoodle maartay soo sheegana malaha waan dambaabnay madaragoodlaad ku maqnayd xagaad ku maqnayd anaa weydiiyey waa la isku dhacay resign inaan ku sameynaan go'aamsan xitaa sababta loo sameeyay waa maxay nin dhan oo shaqo laga doonayo oo meel dhan laga doonayo oo la doonayay u amaartay soo sheeg madaxweyne ah haddana aan lahayn ma vacation baad ku maqnayd baan ku warmay buu yiri xogeyntaaduna wax warbixin dhammaad siin waxa ku og ma jiro ra'iisul wasaar kuma oga cid kuma oga maxaad ku maqnayd 4 bilood kalfadhiyada aan sameynayni kamaad soo qayb galini maartu wuxuu halka la soo istaagay waxaan anigu ka niyad jabay odayada garxajisa buurta galay baan ka niyad jabay go'aamada ay soo saareen waxaan idhi adiga may ku qosaysaa political baatay siyaasi baatay may ku qosaysaa arinta adiga kuma qosaysay odayada meeshay doonaan hamaraan warnikan markaa waxa dhacday arinta waxa weeyaan madmadow fara badan baanu ku aragnay go'aanna waanu ka qaadanay markaasi martin halkaas uu ka baxay isaguna waxaanu markaas sameynay oon ku dhawaaqnay muddo dhaweyd bishii 9aad 15keegii 2019 oo muddo dhaweyd soo wadnay anagoo hoos intaydii kala soo halka ka wadna xidhiidhna lale waxaanu soo diyaarinay haddana waxa la yidhaaho jabhadii laga sinaantii iyo cadaaladda ayaanu kaga dhawaaqnay ingiriiska oo la sameeyey oo markaasi dowliye sare uu yimid maartay soo sheegana casayr dowliye casayr wuxuu markaas sameeyey xidhiidh joogto ayuu lahaa uu la sameeyey runtii wuu diiday casayr labadaas siyaasi arintoodaba waa diiday wuxuu yidhi arintan saanad wuxuu wadaa maaha sidii aan anagu rabnay qadiyadna ma wadida maxaad rabtaa adigu ma wax alla wuxuu doonaya wala garan waayay marka runaantii waxa weeyaan caare isaga halka weeyaan runna waan idii sheegayaaye garxajis waa wada caare garxajis waa wada lixle arintan marka waxaan doonayaa inaan galbeedkana ka hadlo oon issabaaleeyo waqtiyadii uu baxay abubakar cilmi wabar waa tii la sameeyey qaab lagu soo celinayo oo uu ka dambeeyey afguduud iyo ninkii la oranayay maayirka magaalada oo wada hadallo badan la sameeyey waxa la soo celiyey taliyihii ciidanka ee dagaalgelinta ee la oran jiray Colonel Dabeeco markii la soo celiyey go'aan buu qaatay laba nin ba markaa kala ahaayeen Colonel Dabeeco qadiyadu muu bixin ara kursi ka kacday buu baxay nimankii aniga ila mid ahaaba janana laga dhigaana maxaa laga dhigi waayay waayo wuxuu ahaa saraakiishii xilligii dagaalami jiray oo ka mid ahaa waana la soo celiyey arintan waxa ka dambeeyay afguduud oo isku yihiin jufo hoose ayaa arinta ka dambeeyay Cabdirasaaq baa ka dambeeyay ninka la yiraahdo afguduud marka waana ninka imika abaanduulaha labada nin ee la rabo in labada dhinacba lagu qaraaco la doonayo inaan runta idii sheega wanaagsan mid waxa weeyaan waa dabagale oo ah dabageed baan u aqaana midna waxa weeyaan waa afguduud afleedshe anu aqaana afleedshe labada ninba waa labada la doonayo labada dhinac in lagu qaraaco in gobolada awda lagu qaraaco oo ninka noqdo abaanduulaha ciidankana uu yahay kanna waxa lagu tala galay maadaama loo dhiibay halkaasi garxajis dadka ugu badan ee deegaanka Hargeysa dagawiya run baan inaan isku sheegno maaha annagu waanu ka soo shaqeynaa waanu garanaynaa istaraatijiyaal ahaan marka la eego waxa weey statistiga waxa weeyaan wax kale ciidanka lagama faa'iido wax laga faa'iidaa dhul iyo dal iyo dad baad baranaysaa deegaanka dadka degan ee u badan ee magaalada Hargeysa u badan waxa weeyaan haday noqoto daanta labada daanood marka daantan kale xitaa wala la dagaa runba wanaagsan jeegaan wala la dagaa daantan kale Saacad Muuse in yar bay ku soo urureen oo ay degan yihiin marka waxa weeyaan qorada dhinacan degan haleeyo degan ilaa iyo naasa hablood ilaa iyo maartay soo sheegan daamka ilaa iyo xagga degan waxa weeyaan ay soo sheeg deegaanadaas oo dhan way wada degaan wana garxajiskuna waa dadka ugu badan weeyaan
runtii deegaanka Hargeysa markaasi waxa la doonaya kacdood hadduu ka yimaado waxa la yiraahdaa demonstration ay sameeyaan in aanan hadhow loo oran reer hebel baan qaraaco nin kale maalkay inuu kan looga dhigo ushi lagu qaraacay weeyaan runta la rabaa marka waxaan u soo noqonayaa topiga maanta aan u soo galay marka Caare wuxuu ahaa nin noocaas qadiyad uu ku dagaalamayay ma jirin laakiin wuxuu ku dagaalamayay waana laga kari waayay Somalilandarnimana kuma dagaalamaynin oo nin Somaliland doonaya ma ahayn wuxuu ahaa nin doonaya iyo soo sheeg waxa la yiraahdo inuu maartay gorgortan la sameeyo dhaqaalana ku helo anagu waxyaalo badan baan u soo bandhignay option badan baa la soo dhigay laba option baa loo soo bandhigay war labada mid qaado in United States of Somaliland aad qaadato oo aan anaguna dadaal ku sameeyno jabhadii meesha joogteen aad noqoto anaguna aan noqono garabkii siyaasadda aan ku nahay oo sida aan wadno United States of Somaliland ay sida wada shaqeyn la yeelato iyo in aad qadiyada qaadato Soomaaliya dawladda Soomaaliya aad ka mid noqoto maamul goboleedyada iyo ciidanka isaas dibadna xiriirka aad la sameeyso oo maartay halkaas xiriir aad ka leedahay una noqon la janaka ciidankana waa laga dhigi lahaa labada mid qaadaan ku nidhi janaka ciidanka noqon ciidanka Soomaaliya ka mid noqdaan labada midba waa diiday laakiin muxuu ogolaaday maanta wuxuu ogolaaday inuu riciyad noqdo horta garxajis waxba muu yeelin waxaan markaa rabaa inaan u soo noqdo waayahay ciidanka meesha joogay ee uu tilmaamayo ee uu leeyahay way soo galeen waana naloo dhiibay waxaan rabaa inaan halkan caawa idiga tusiyo 30 nin oo ay ka mid yihiin waa meesha waxa ka dhacay waxa la yiraahdo odayadii loo diray ee farba lagu kabaleeyay loo diray ee dhinaca buurta loo soo diray markay u yimaadeen meel karinka la yiraahdo ayuu kula kulmay ciidankuna way diideen waxay yiraahdeen wax xidhiid la yiraahdo haddaad adu tagayso niyo caaro adigu iska tag cidiga aad ka haysanaysan ka hayso 30 qof oo markii hore la socdo maartay Saad Yoonisa oo waxa intaas soo raacay nimankii Muuse Ismaaciil ahaayay uu dul degay ee ciidanka ciidameeyay meesha tababarkana lagu siiyay hubkoogii iyo xoogina way la xareen runba wanaagsan been la isku sheegma dhawaanna waxa lagu dhawaaqi doonaa taliyaha ciidanka dhawaan baan ku dhawaaqi doonaa taliyaha ciidanka ee maartay ayaa lagu dhawaaqi doonaa waxa weeyaan halkan ka hor dhici maayo taliyihiina waa diyaarsan yahay taliyaha ciidanka maartay lagu dhawaaqaya ee meeshaasi jabhadda marka cidda suuqa gelinaysay arintan gelisay iyo warbaahinta gelisay hadalka yar arinkuna wuxuu ahaa xalay toole ayaa qorshaha markii aan anigu soo galay xitaa arinka warkaasi waxaan si xogogaala oo arintu ay jirtay in 30 qof la keenayo 30 ka qofna la doonayay 300 qof oo qoladii jeegaanta ahaa ee ciidanka maartay soo shaqaranka ay ku sheegaan lagu dhaxtaro la yiraahdo muraayadana la tuso oo la yiraahdo adduunka wax laga dhaadhiciyo oo la yiraahdo carawan soo celin sababtoo arinta waxa ku qasbay Muuse international community-ga istiraatiiji way meesha waxa weyn maraakiibta mara waa badmareen waxa weyn mareenka meeshaas waxa weyn waana xaruntii ugu weyneed la doonayay in laga dhiso waxa la yiraahdo mariniska istiraatiijiyadu ka leeyahay Muuse mariniska in laga dhigo la doonayay meesha saldhig laga dhigo saldhiga mariniska ee maartay ciidamada maartay ay soo sheegan xeebaha ee ugu weyn ee Somaliland baa la doonayay marka hore qorshaha waa la waday in laga wado si ay u ilaaliyaan wuxuu ku qaataa waxyaalaha la yiraahdo maartay soo sheegan ilaalada badda waxba lagu siin jiray Somaliland waxyaalo budget baa lagu siin jiray arintaas la doonaya in maartay la hirgeliyo waxa la yiri meeshaas cabsi weyn baa jirta laba mid bay noqonaysaa laba option baa la soo qaaday in aad heshiis la sameeyso oo aad maartay adigu aad tanaasulaad sameeyso heshiiskaad soo xareyso haddii taad sameyn weydo meesha waxaan territorialka waxaan u ogolaanaynaa ninka haysta ciidanka haysta baan ogolaanaynaa kadibna isaga way jiraan wadanada sharciyada adduunkuna wuu jira arinkaas حتى وانو soo bandhignay markan ugu dambeysay waa loo soo bandhigay sharciyada u soo bandhigay waxa u soo fadhiistay oo live-ka u soo galay oo si toos ah ugu soo galay Martin isagoo Mareykanka jooga oo ka hadlaya legislationada iyo sharciyada adduunka jira ee la ogol yahay iyo international community-ga shirkii ugu dambeeyay ay galeen ee ahaa shirka iyo soo sheegana amniga ee Mareykanka ka dhacay waa loo sheegay waxa la meegaagi dhagama la hadu malag dhawaaqana ninkaasi nin wax maqlayna ma ay nin isagu
aqoontiisa iyo nidaamkiisa iyo systemkiisana ku meel marayna ma ahayn laakiin wuxuu ahaa in meesha uu ku dhago kadibna maartay isoo sheega gorgortan uu Somaliland kula galo oo Muuse maartay gorgortan kula galo xoogaa yar ka qaato umba muhiimadiisu ahayd qadiyadna uma dagaalamaynin beeshiisa yar uu ka xanaaqay waxa kaliya uu ka xanaaqay waxay ahayd waa arinta saddexda nin ee lagu dilay halkaasi saddexda nin umbu maalintaana ka baxay marka imika markay xaaladdu halkan timidna jaadku ceergaabe ka qaadanay been la isku sheega ma intuu soo dago ceergaabe imanayo jaadkiisa ka guranayo ka qaadanay cidda meesha geysana cid kale ma ahayn hal mar buu ayuu nidaam sameeyay odayadu la sameeyay xoogaa yar lacag laga soo qaado laga soo jafay oo u qayqaybiyay ciidanka waxaan markaa idin sheegayaa waxa weyn arinta laga hadlayo ee la soo galiyay warbaahintu waa been soddon qof oo kaliya hareeraha inta ka joogay waan fiidiyogan idin tusan doonaa hareeraha inta ka joogay soddon ka mooyaan wax kale ma jiraan ciidanku say u dhanaayeen waxa la hal gaari waxa la soo siiyay hadaad naga tagaysid labadan tiknikada ay ciidankaagana qaado gaarigii maartay soo sheegeen loo iibiyay ee la wada og yahay ee maartay gaarigaasna lagaga qaadan jiray qolooyinka kaga qaadan jireen maartay soo sheegana Puntland waxa jiray gaari kale oo Cabdiwali uu siiyay oo soo siiyay oo qabaal ahaa gaariga qabaalku ma laha waxa la yiraahdo astaan ciidan waa gaari caadi ah la saddexda tiknika mooyaane wax kale ma wato ciidanka tiknikadii kale u badnaa ciidanka haysta wuxuu ku naaloonayo hadaladu ku celcelinay way soo socdaan taliya guutayaashaasi ma soo socdaan qadiyad ba u baxeen garxajisna waa wada caare waxa maanta ay ka baxeenna cadaalad darrada iyo nidaamka xumada iyo systemka jira iyo Muuse nidaam xumada uu ku wado iyo dadka sidoo u laayay wuxuu ahaa Muuse wuxuu ahaa ninkii ana wax dili kara duco qaadan ma yiri buu ahaa in ciigal ku qabsaday ee ku yiri maartay kaadi baan u soo cabay ee yiri kaadi dad soo cabtay waanu ka meeyay waanu ka shubay runta waxa weeye meeshaasi waxa weeyaan calan casta haysatay meesha iskugu timid waxa weeye waa niman run ahaantii wadankana wareeriyay sidaan inay ku dhalaysay moodaya ku dhali mayso Soomaali ba iskale nin waxa la keenayaa Soomaalinimadu ku weyn tahay Soomaalina ayna kala maarmaynin aaminsan qadiyad ah laakiin lama keeni doono nin isaga doonaya inuu wax yar haysan nin qadiyad ku dagaalamaya la keeni doona taliyana ka noqon doona odayga dambe uu yimaadana sidii ina Cabdi Waraaba dabada rasaas laga soo dhufanaya taas waa balan anu goob joog baan u ahaa ina Cabdi Waraaba ciida galo markay u tagay ee darfacla ka tagay ee dabadeedna in ciigal uu dhiibay booyad shidaal dadkaaga soo xaray lacagtana u dhiibay maxay sameeyeen ciida gale salaxlay duleedkeega intay soo dul istaageen ayuu ugu tago shidaalkina ka qaateen wixina ka qaatay isagana way soo yareeyeen markuu qiiqeeyna rasaas baa dhulka lagu dhuftay oo ay baar xuftay halka barida ay ka baar xuftay waxaan soo qaadnay isagoo barida dhiig ku leh ragii soo qaaday baan ahaanu la iga sheekayn maayo shiina faqashkan halkan ku maartay soo sheeganeen dadka masaakiinta ee maartay saxaaqa ee beeraha kula darar weyne maartay soo sheeka gubay ninkaas aan wada soconay goob joog ah Cabdiraxmaan Fooxla kamid ahaa ciidanka xitaa laakiin ma ahayn dagaalgaliye iyo guutada midna kuma jirin annaga ay guutada labaada ayaa tagnay oo maartay ka baxnay maartay soo sheegay xidhka meedka meesha la yiraahdo imika la isku haysto masalaha marka been la isku sheekeyni Somaliland wax la wada leeyahay maaha ku dhalina mayso Somaliland manin we are not the Somaliland wax Somaliland la yiraahdo ma jirto absolutely it was underground dhulkay ku dhacday qadiyada markaasi arintaasi carre halkaas ay taagan tahay marka waxa weyn ciidamada halkoogii bay joogan waxayna joogan goobahay kala joogan baan idin sheegayaa oo halkan aan maartay ka jeedinaya waxay joogan ilaa shidanay joogan ilaa daalo ilaa waqal daray waxay joogan oo kore ilaa maartay goof ilaa midhishi saddexdaba iyaga hayso goobood shanta goobood aan tiriyay ayay haystaan ciidanku karinka halka laga galay dhagaxaanta lagu gooyay intaas oo kaliya meeshaan waa lagu soo noqonaya weerar kala lagu soo qaadi doona waana la imanaya marka waxa meesha yaala qadiyad baa lagu dagaalamaya dadka qaarkood kitaab yar oo xun oo la keenay oo maartay soo sheegana anu kitaab quraan ma aha kitaab waxa la yiraahdaa buug la soo qoray oo doonaya xadra weeyaan dadkani dad xadra ku wada jiray ahaayeen xadradaas dadkii ku wada jiray baa la doonaya qaarna la gaalaysiiyay waxa la keenay wadaad kala meeshii qabsado muruud kala
muruudkii meesha hore u joogayna waa dhintay marka matalan maanta muuse muruudkaa weeyaan dadkiina waa kala gaalayay qaar buugga au qorana qaar buu gaalaysiiyo gaalo ka dhigay oo yidhi mujrimiin weeyaan qaarna saalixiyiin weeyaan marka ma soconaysa arrinkaasi wax soconaya ma aha dhulkan dadka iskala ayaa u kacay isagana waxa weeye Charles Taylor weeyaan waan soo xidhaynaa ballan weeye taasi ballan bay ku tahay waa go'aanka la qaatay dambiyada halka ay ka geysteen isaga iyo Siiraanyana lagaga daba xadhi maayo ama qabiil ku taageera ama maxay ku taageera idinka idii taala runtaan oo ka hadlayna arinta meesha taala waxa weeyaan dadkan wax lagu maamulayo iyo system lagu maamulo waxay ahayd buug yar oo ay sameysteen iyo xeer hoosaad ay sameysteen oo lagu sameeyay meesha la yiraahdo agabar iyo gar adag lagu sameystay oo la doonayo in maarta dadkan lagu maamusho 30 sanaad ma soo socdo wadanka Charles Taylor ma haysanayo farahaanu kaga goynaynaa ma soconayso sharciyada caalamkana waan u tiigsanaynaa waxaanu insha Allah hadduu ilaahay maartay qadaro oo waqtigeyga noqoto waanu rajaynaynaa guusha inaanu gaadhno muusana gacanta intaanu soo qabanno u dhiibno Charles Taylor isagoo ah international community-ga gacanta ka saarno inaan maxkamadda soo saarnay maartay criminal court-ka ballantaasaan ku qaadno dambiyadu ka geystay ee joogtada ah ilaa xilligii maartay 1991 SNM markuu ilaa iyo imika dambiyadu geysto dhan waxa weeyaan meel bay ku wada qorayiin waanu gudbinay dhinac kasta dambiyadu ka geystay dadka uu laayay ee guud ahaan uu laayay maartay rayidka ah xillig dhinac kasta uu laayay arintaana waa la geyn doonaa marka waxa weeyaan jabhadda way dhisan tahay baan yaa la isku sheegin jabhaddu sideedii bay u dhisan tahay waxa weeyaan taliya la soo magacaabaya ilaa imikana isagana hadaladii uu meesha ka yiri ayaan maartay tusinaya insha Allah maartay dulqaad waxaan si fiican idin tusanayaa dadka garab taagan waa 30 kan idin sheegayo gaadiid iyo technique wax la tusay official oo dadka la soo tusay ma jiraan rahmatullahi wa barakaatuh dhammaan ummadda islaamka waa salaamaya salaamka bacdi waa maalin taariikhi ah qodayaan maanta hor joogta ee ah boqorada iyo salaadiinta iyo uqaasha xildhibaanada odayaasha aqoonyahanka aad iyo aad baan idin salaamaya maanta waxaan ku wareejinayaa ciidankii jabhaddii dulmadiid waa fadhiya hagee fadhiyaan beenaale si dhaba oo mugle ayaa idinku wareejinaya iyagoo saraakiishooda wata aqoonyahankooda wata intaas waa intaa idinkana waxaan idinkula dardaarayaa saraakiishaas waa ku soo tacabnay inay halka gaarsiisaan sacbooleydu wuxuu ku tilmaamayaa sacbooleyda nimankan daba socda dresski xitaa lagala baxay waxaa go'aan lagu qaatay ciidanka meesha jooga ee dhamay 3,000 oo ciidana meesha jooga anigu waan ka warhayaa si fiican baan u socdaa saacad baan ula socdaa 3,000 ee ciidankii guud ahaan waxay ku yiraahdeen dreska ciidanka ee la siiyay adigu maad lahayna lama iman horta dreska noo reeb hub ku gacantu ka bixi gaaray shalay toole waa la israasaasay xitaa markay xaaladda noqotay ayuu 30kiisii soo qaatay intan buu marka $2,000 u qaybiyay lacag waxa loo dhiibay marka $300,000 waladan $200,000 iyo wuxuu qaybiyay intii kalena isaga soo qaatay dhaqaalaha ku baxay waanu ognahay waxa maartay soo sheegay odayaashu qaateen waanu ognahay wax qarsooni ma jirto dad wax u kala qarsoon yihiin manihin marka waxa weeyaan soo sheeg runta waa la ogyahay 30 qof oo kaliya ayuu soo maartay soo qaatay 30kii qof may official how to san gaadiidkii ciidanku wato ciidankii halkaas ay joogaan ciidankii halkan ay joogaan eegwaan idin sii deynaya way soo socdaan guutooyinka ma soo socdaan wax soo socda taliya guutayaasha iyo taliyayaashuna ma jiraan taliyaha ciidanka maartay soo sheeg jabhadda ayaa loo magacaabaya oo maartay isaga cornel meeshaas qabsanaya waxa weey qadiyadna ku dagaalamaya kana soo jeeda beesha garxajis ma aha cid kale
ayaa la magacaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badanna waa la magacaabayaa waa la wadaa qorshihiisii baan ku jirnaa garabka siyaasaduna shir bay yeelan doonaan insha allah ay yeelan doonaan caawadanba iyo habeen dambana shirarku way soconayaan insha allah hadduu leedhaa waanu soo samaynaynaa arrinkaasi waxa weeyaan ma aha wax ku turkuteena oo aan ku hadlayo anu waxaan ahay xogayaha arrimaha difaaca ee garab siyaasadeedka jabhadaha gobolada waqooyi ee dalada ku midoobay ee halkudhigaygu yahay Northern States of Somalia wax soconayo kale ma jirto meeshana waxa kale waa sheekay ku hayaan oo sheeka bareley baa leedahay sheeka bareley taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xisbu xalfaani waxaan leeyahay cadaalad baa dadka deeqda adiga dalkana waxaan leeyahay qoladu waxba ma tarto annagay dagaalkii naga diideen hal fadhi oo infantry ah iyo hal fadhi oo technical laba fadhi waxaa jiraan xeebta waxaa taliya guutayaalka yaasiin xuseen xasan gaashaan la dhexe mutaystay iyo cumar jimcaale diriir oo isna gaashaan la dhexe mutaysto laba guuto xeebaha jooga meesha la yidhaaho shumux iyo meesha la yidhaaho cilaamad waxaa jira urur bool joogay wuxuu soo gelayaa caawa meesha la yidhaaho been fadara labaan isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yidhaaho tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry ah iyo 100 technical ah 900 intaasaan maanta idinku wareejinayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin nabad baa ka shaqayseen laakiin kuwada halkeeda la gaarsiiyey assalaamu oka marka ciidankan uu leeyahay technically imika waxa weeyaan waxaynu ognahay xalay toolo waxa lagu dhawaaqay inay ciidanku ima doonaan wariyaashuna ay soo sheegeen guud ahaanba maartay warbaahintuna ay sheegtay anaguna si hoos ahaaneed oo xog aan u ogeyn in ciidanka maanta lagu hadli doono oo guud ahaan isaguna ciidankana la soo wareejin doono ciidankii la soo wareejinaya iyo technically way imanayaan taasi waxa la yidhi nin weyni umursi iyo nin weyni si wax uma wada sheego odayba si wax uma wada sheegaan waynu ognahay odayga yar xitaa maad aragtay soo sheegay hadday meesha soo hor istaajinayaan inay usoo yar labisaan bay ahayd isagoo diiftii iyo dhibaatadii ku taala la soo istaajiyay meesha xaqiiqda meesha jirtaan idii sheeganay ninkan caare qadiyad nin lama aha qadiyadna kuma dagaalamaynin laakiin wuxuu ka baxay caradii saddexdaa nin ee la dilay ayuu ka baxay oo kaliya Sacad Yoonisna waxa uu qaban doonaan uu garan maayo oo de Sacad Yoonis maanta waxa way ku socotaa awalba meesha way deganaayeen haddii Sacad Yoonis u danaynayo uma danaynayo Sacad Yoonis ee dantiisa kale iyo lacagta yar uu qaatay buu ku soconayaa waa tagay waa ku daayay isagu marka meesha waxa taalo waxa weeyaan maamul baa la sameeynaya runtii dadka ku adkaystay garxajis isma wada socdaan waa runta Ibrahim Ahmed laakiin garxajiska nimanka ugu shidan ee qorshahan iska lahaa waa Muuse Ismaaciil buurtaana iyaga iska leh dadku isku deegaan ma been isku sheegin Muuse Ismaaciil ba siiyay oo maartay meesha degay oo ka dhidiyay oo ka dagaalamay oo hubkana maartay soo sheegay ciidamada u badan Muuse Ismaaciil weeye marka haddii arintu saa tahay waana laga xanaaqay garxajis marka hore waa lagu wada dhameystirnaa waana lagu wada dhameystiraya imika mana kala duwana garxajis meel baana lagu wada armiyaa meelna waa looga taliyaa waxay isku raacsan yihiin oo israakiishooda isku raacsan yihiin eeg waxa weeye duuliye sare maartay Casayr iyo Martin nimanka siyaasadda dibadda u jooga arinta wada bay ahay nin dalkii gudihiisa jooga waynu ognahay askari yar oo ciidanka ku jira kuwana askarta la geyn doona askariguna waxa weeyaan waa mushaar yar oo aan ku filnayn lacagtu qaata 750 kun buu qaadanaya lacagta Soomaaliland oo aan $80 ba ahayn xitaa marka intaasi oo calooshiisu shaqaysta ku noqonayaan kuwana waan ku sheegaya kuwa hore xitaa kuwa galbeedka ka soo jeeda gobolada awdal ka soo jeedana waxa weeyaan ciidamada kaga jira calooshiisu shaqada intaas ku shaqeeyaan marka waxa weeyaan waxaan meesha waxba yaanan la isku riixin runta waxa meesha taala waxa weeyaan ciidamadaasi waxa weeyaan waa ciidamo dhisan
hubkii oo dhanna gacantay ku hayaan waxa weeyaan way diideen istiraatiijiyadda meesha la doonayay in laga qaado muuse uu doonayay iyo jeegaanba waxay doonaysay maamulka uu muuse gacanta ku hayste ee taliska nugula wuxuu rabay in meeshaasi waana lagu qasbay waxay ka mid ahayd international community-gu arrinta amniga ay ka hadleen war meesha ninka taliyaha ee galay waa meel badmareena maraakiibta adduunka kala gooshaa mara haddii meeshaasi ay baareed ka dhalato ama nimanka burcadbadeedka la yidhaaho oo ay hijack sameeyaan waa la cabsanayaba ama ay argagixisaba ay ku dhuumato oo ay argagixiso meeshaasi ka timaado way iman kartaa baa layidhi waa waxyaalaha laga hadlay bay ahayd muuse go-aan markaa waxa lagu siiyey guddidii loo soo diray 12 haayay arrinta laga hadlay bay ka mid tahay muuse waynu ogeyn been yaa la sheegin muuse waynu ogeyn in salaadiintu ay u tageen in madaxtooyada lagu wada shiray inuu istaagnaa mowqif ah oo lagu kala tegay shirkaas oo lagu soo kala dhaqaaqay waxaan cafiyey ciidankii iyo ciidanka ii keena isagana codsiga soo weydiisto ayay halkaasay maraysay arrinta bedeshay waxa weeyaan waa arrinta international community-gu ka shiraan ee shirkii lagu qabtay maraykanka ee ahaa maaragtay shirka amnigana lagaga hadlayay aad baa looga cabsi qabay arrintaasi marka waxay ahayd laba mid baa markaa la soo garay laba option bay iyagu qabsadeen muusena waa loo sheegay haddii aad wada hadal la samayn weydo ciidanka aad soo xarayn weydo territorial adigu aad sheeganaysood maamulaya uu noqon waayo waxay noqon doontaa baa lagu yidhi inaan isaga aan annagu xidhiidh la samayno haddaadan awood u lahayn inaad adigu soo xarayso waan ognahay dagaalna kuma qaadi karo oo deegaankaasi waa deegaanka soomaad garan ciidamada taliyayaasha u soo magacaabay ee taliyaha ciidanka haysta ee dhinaca maaragtay soo sheeg jeegaantuna waa nin deegaanka ka soo jeedo isku deegaan yihiin baan yaan la isku sheegin marka waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waa la famaroodi iyaga la isku jabiyaa waan maqli jiray waxa weeyaan saraakiishii buu isticmaalayaa wuxuu ciyaarayaa shax uu ciyaarayaa la ciyaarayo inuu kala jabsadana ay doonayo laakiin majority waxaan u sheegayaa boqolkii waxa marka percentage la saaro boqolkiiba 90 waxay isku raacsan yihiin garxajis in aan maamulka la raacin kuwa galbeedka jooga iyagu maanta waxa weeye waxay ku dhex jiraan waxay la mid yihiin gobolada galbeedka kale la mid yihiin iyo dhibaatada haysata ayay la mid yihiin garxajiska galbeedku laakiin nimanka dagaalamaya waa bariga ee Janis haysta ee Janis ay ku dagaalamaanna haysta istiraatiijiyad ay ku dagaalamaanna haysta inaan saa u kala qaado weeye markaasi Axmed markaa waxa weeyaan adeer waxa weeyaan ha caruuroobin arrinta jirta saas weeyaan adeer maarta arrinkaas jira guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed ba waxa weeyaan qadiyad baa lagu dagaalamaa mabaadii bay dadku ku dagaalamaan ama mabaadii diiniyad qof ku dagaalamaya oo diintiisu difaacaya ama mabaadii kale wuxuu ku dagaalamayaa deegaankiis ah Soomaali deegaan bay isku haysaa wax kale la isku hayo waxa maanta inta la waa isriix ay deegaanka la isku haya marka dhibta meesha taala waxa weeyaan mid kalena qadiyadda waxa aad u sii fogeeyay oo fogeynaya oo aad u sii fogeeyay hadaladii uu ku hadlay Mr. Cunaami cunaami waxaan u aqaanaa ninka la yidhaaho barmadow weeyaan isaga cufti ku haya meeshana kala dhaxwada wuxuu meesha kaga hadlay shirka wax qof bilaadana lagu yidhaahaa ama laga hadlo afka laga soo saaro kobta tan geedkii reebtigay ay wax ku maamuli jireen weeyaan hooyadayna deganayd bal erayada eeg u fiirsada hooyadayna deganayd reebtigay waxbay dili jireen waxna way ku dili jireen waxna way ku maamuli jireen laakiin anagu waxbaan ku dooranaayo isoo sheeg madaxweynayaasha soo maray deegaanka soo maray oo dhan halkana lagu soo doortay xagee laga doortay beenaala yahooni gobolada awdal baa laga soo doortay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliland waa lagu heshiin waayay bariga waxa labaad oo ku xiga sida adag macawisuu kala baxay macawisleydii meesha tagtay macawisaa lagala baxay odayadii salaadiinta ayaa lacagtan daba cararayay neefkan yare maartay soo sheeg daba cararayay kabuu kala baxay wuxuu ku yiri Suudaan cadda guday hadalku ku yiri dhageyso wuxuu ku yiri saddex isma baridido hadday isbarididina isma qadiso ama iskagama tagto wuxuu yiri suldaan isma baridiyo oo hadduu isbariyo isma bariyo hadduu isbariyana iskagama tago sodohona isma maartay isma baridido hadday isbaridido marti iskugu timaado marti soortaa annagu waxaan markaa leeyahay buu yiri suldaan caddu guday hadduu i bariyay suldaan i bariyay bariyadiisii aqbalay
erey kale daba dhiga wuxuu yiri suldaan siyaasadii galbeedkaad meesha la timid kabaha la iskala baxay kabaha been la isku sheegin gardarre garab og baa la yidhi sheegaan way is og tahay yaanu been isku sheegin gardarre garab og baa la yidhi waxa weeye hadallada uu ku hadlayo hadallo nin suldaana nin maartay soo sheegay xataa ishimaha aanay ku hadal ama caaqiladu aynu ku hadal ayuu meesha kaga hadlayay kaftan buu badan yahay maxay buu badan yahay waxa weeye waxa meesha yaala ba jiro wayna ku saxsan yihiin maartay soo sheega beesha la yiraahdo Muuse Ismaaciil Cergaaba degan inay adkaystaan ciidanka ugana haystaan waa arinta ka jirta galbeedka ciidamada la geeyay shaarkan la isku xidhay waa la isku dawladeynaya shaarka loo xidhay maalin walba lagu leynaya dadka lagu leynaya iyo soo sheeg meesha la yiraahdo wajaale maxaa lagu laayay miskiinka yara maartay ganacsatada aha wax kala ma qadiyad ma waa yuuna yeelanin yeena reerkan ka soo dhaxbixin dhaqaale leh nin activity business activity inuu yaalo ogaaday yuuna dhaqaale yeelanin waxa la iskala dagaalamaa adduunka waan ku sheegayaa adduunka siyaasadda marka la dagaalamayo waxa la iskala dagaalamaa cilmiga waxa la iskala dagaalamaa waxa la yiraahdo maartay dhaqaalaha ayaa la iskala dagaalamaa waxa la iskala dagaalamaa awoodda saddexdaba waxa la doonayay dadka deegaanka majority-ga in laga dagaalamo waa arinta ugu horeysay markuu muus qabsadayna anaga waxa weeyaan cawaan mani wadankan waanu ku dhaxnoolayn saraakiishu ugu sareeyay baan ka mid ahaa markaan ka soo tagayna jaamacadan galo nin aqoon laanahay lama qaldi karo runtaan u sheegina Muuse waxa weeyaan wadankan iyaga kala kixiyay Siiraanyana waxa weeyaan dhulkii iyo dadkiiba waa taariib buu galiyay wadanka wuxuu bilaabay isla markuu xilka saa u qabsadayba wuxuu bilaabay awoodii buu soo koobay waana taa laga hadlayay awoodii wuxuu ku soo koobay dad gaara darajo bixiyay dawladii ka horeeyay inta soo shaqeynayay ayaana bixin maamuladii ka horeeyay ayaana bixin waxa weeyaan laakiin awoodda la koobay arinta la iskala dagaalamay idii sheegay istaraatiijiyad laga leeyahay bay ahaayeen arin laga shaqeeyay bay ahaayeen bloon A bloon B bloon C illa maartay sab waxa weeyaan inta soo blend ba u dajisan blanka marka waxa weeyaan 30 sano soo socdana wax la doonayaa saas inay ku maamushaan cidda cabaadaysa iyaga u taala waxa weeyaan Somaliland wax yaala ma jiro there is no Somaliland Charles Taylor ba qabsaday waxa qabsaday nin wax la yiraahdo maartay warlords ba qabsaday warlords ku heshiiyeen calan castanimeekii la oran jiray ba ku heshiiyay Siiraay waa ku daayay isaga wuxuu qaadanayay wuu qaatay waa ka halka dagay Abu Dhabi waa ka tagay wuu maasuqay wadanka ninka taariibiyay weeyaan ninka halka galiya xaaladda adag galiyay isaga weeyaan ee u koowa nimankan waxa weeyaan wuxuu qaadanayna waa qaat kanna waa la mid waana sheerka la galay bay ahayd marka Somaliland waxa la yiraahdaa cidda ku riyoonaysa ha ku riyooto we are not Somaliland manihin marnaba Somaliland waxa la yiraahdaa ma sheeganayno mananihin Somaliland waxa la sheegta maaha waxa la cunama roodi la cunana maaha Somaliland qadiyad lagu dagaalamayo dadkii ugu horeeyay gobolada Awdal ee waliba uu dhibaatada gaarsiiyo cafiyay ba haddana uu ku wada genocide ku haya marka wax la wada leeyahay ma we are Somali baanu nahay Soomaaliduna waxay doonayaan wanaag ku jira oo wax walba ku jiraan in ummadda Soomaaliyeed 40 sanadood ku jiri mayso kuma jiri doona arrinkaas 40 sanadood dambe inaanu ku jirno oo 30 sanadood dambe 50 sano aynu ku gaadho haddana in maartay soo shig system xumo iyo nidaam xumo iyo tribalism iyo qabyaladan isku leeyno iyo deegaan kuma jirayno ni walba waxa weeyaan system baa la keenay qofka hadii uu rabo waxa la yiraahdo soo sheeg cudur uu ku dhaco laba cudur baa ku dhacay Soomaal ayaa jira adduunka waa cudur qabaa'il la yiraahdo oo qabyaalada iyo cudurka la yiraahdo HIV AIDS qofku uu dilaa oo uu dhimaniba oo tii alla markay u timaado dhimani laakiin kani kuna dadkana waa baabiyay umadana ma dilamana noolaado qabaa'il Soomaali maalin walba arintaas baa jirta marka arinka qabaa'ilka la yiraahdo Soomaali waa laga saaraya wadaniyadii baa lagu soo celinaya nin walba deegaankiisa iyo nidaamkiisa iyo systemkiisa qabiil waxba wax ku tari maayo ka baan u sheegaya ninka la yiraahdo Axmed Ibrahim wax baro nin dhalinyaro Ilaahay ka dhigay waqtigaaga ku xisaabtan wax baro wax barashadaada gal mustaqbalkaaga ka shaqee taas muhiima qofka bilaadanka ama dadka civilianka right-ku wuxuu xaq u leeyihiin in marka dawlad iyo maamul loo dhiso meel lagu xisaabtama jira wuxuu ku xisaabtamaa qofku waxa la yiraahdo soo sheegan
cabinet minister kana lagu xisaabtano waa shaqaale wasiirku waa wuxuu ka mid yahay shaqaalaha soo shaqo tagay dawladdu ka mid yahay laakiin qofku wuxuu ku xisaabtamo waxa la yiraahdo baarlamaantiga sharci dejinta civilian kana cid maamusha ee maartay ay mar walba hay'adaas ayay doortaan inkastoo dawladdu shicib ay tahay haddana laakiin hay'adaas ay doortaan qofku adduunka kale waxa lagu fikraa waxa la yiraahdo maxaa loo sameeyaa kaabayaasha dhaqaalaha degmadeeda ma loo sameeyaa isbitaalo ma loo dhisayaa maxay ma loo dhisayaa laakiin lama yiraahdo hebel ma loo dooranaya laba jirib baa isku leenaya wasiir oo oranaya wasiirka hadan anaga la siin iyo hadan anaga la siin waxaas qadiyad maaha wuxuu qofka aqoon waa in la sameeyo basically waa in maartay nolosha asaasiga ah si dadku u wada helaan dadkuna uu maartay waxa la yiraahdo xeega ku noqota ilkana ku nabad galaan waxay ku noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed oo la isku keeno mar labaad ma aha laakiin waxa la yiraahdo jeegaamin halkaasi la isku joogo marna jeegaan ay qabsato marna graan qabsato wax soconaya ma mana ogolaan doono waxaan ogolaanaynana ma aha annaga policy-ga siyaasadayadu waxay ka duwan tahay tan mabaadi baan ku dagaalamaynaa jabhadaha gobolada waqooyi mabaadi bay ku dagaalamayaan hadday SSC tahay hadday tahay jabhada golis la yiraahdo waxa weeyaan qaladaadka dhacay ee caare sameeyay waxa jabhada magaciisa uu bixiyay caare black jabhada caare la yiraahdo taliyo caare weeyaan janaka ciidanka ay caare weeyaan gandarigu caare weeyaan artillery-ga ninka hogaaminaya caare weeyaan ninku fara badana dibta arinta jirta taas ahayd marka caare caqabad buu ku ahaa ha dhaafo sidaan ku dhaafo oo wanaagsan iyagana taasadan uga caqabad buu ku ahaa labada dhinacba dhinacana caqabad buu ka ahaa xaggana wuxuu mutareen waxa taraysaa yaraa imikan leeyahay caare wuxuu tarayaa yaraa laakiin waxa way garxajis waa wada lixli garxajis waa wada caare niman fara badan oo saraakiil ayaa jira hogaankana kaga fiican xitaa caare kaga wanaagsan hogaanka waa lagu kala fiican yahay caare waa dagaal galiye rag hogaanna bartay dagaalkana gelinaya ayaa jooga waana soo magacaabaynaa intaasan caawid la wadaagay waxa weeyaan waa walaalkiin Mukhtaar Qarni ama Mukhtaar Dulmidiid oo ah xogayaha arrimaha difaaca jabhadaha gobolada waqooyi dalada ay ku midoobeen la yiraahdo Northern State of Somalia waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeenku idin wacnaado insha Allah kulantin dambe xiiso leh meel kasto ay Soomaali joogta inta Soomaalinimada jecel inta wanaaga jecel waxaan leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullah kulantin dambe xiiso leh aad baan idin salaamaya